qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa cambaareeyay talaabada ay xukuumadda Somaliland ku wareejinayso haamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay. xildhibaanadan oo kala ah xildhibaan Saleebaan Cali Khayre iyo xildhibaan Maxamed Cali Xaaji Axmed Maxamed Cali Dheere ayaa si isku mid ah u cambaareeyay arrinkaasi ay xukuumadda Somaliland ku tallaabsatay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Horta arrinka wareejinta haamuhu sida ay sheegayaan maamulka barasaabka kale uu ka hadlayay abba maariyo kale uu ka hadlayay maaha runtii waa arrin jira un baa wax laga soo gaaray waxaan jirin lagama hadleen oo kama hadleen ummaddu kama hadleen waa wax la og yahay oo madaxtooyada ka soo baxay war madaxtooyada ka soo baxay oo ila lagu kalsoon yahay laga helay waliba in agreement la galay lagu wareejinayo haamaha shirkado ay dad bareefadi leeyihiin kuwaasoo qaar hore u shaqeeya ahaa iyo waxaan u aragnaa wareejinta haamaha in cid gaara loogu sameynayo ila dhaqaale oo dadka iminka xukuumadda gacanta ku haya ka mid ah taas waa mid aan qaran ka dhaqayn waa mid aan golo degaan ahayn aan anaga nagu suurtagelin inaanu ka yeelno ka ogolaanno waa mid hore u soo dhacday oo dariiq hore ay raacayaan dadkan iminku mar iyo laba iyo saddexba waxa uga suurtagalay wixii qaranku in bareefad laga dhigo iyo sireeyaba uu ka soo saaray wareegtada in haddana dad bareefadi maanta isticmaalayaan waa kuwii iibiyey ayaa arrinkan maanta wareejintana wada oo ku lug dhulkii egstashka ee mustaqbalka loo doonayay in haamaha lagu fidiyo maanta dad gaara ayaa leh waxa iibisay madaxtooyada iibisay waa ogti hebel iyo hebel baa iibiyey inta laga iibiyey haddana shirkadihii lagaga galay sheer sida Telesom kale iyo shirkado kale maanta waxay soo gashay awrkii gurgurin la qalo halkii ugu dambeysay marasa qaranku waxa halkan ugu yimid waa haamaha iyo dekada waxa ugu weyn maanta qaranku ku naaloonayo ay leenahay dawladnimada iyo waxa ka dhaxay waa masaariifta ka dekada meesha masaariifta laga siiyo iyo kuwan maanta la waa lagu wareejinayaa meesha masaariifta qaataan ay kala soo baxaan sameynaya waxa ogtihiin cid gaar ah in loogu faa'iideynayo oo maanta mas'uuliyiinta aynu wax u dhiibanay ay ila dhaqaale ka dhiganayaan iyagoo bedelayaan ma doonayaan meeshan cid ka dambaysa inay u aydo taasi waa mid xaraan ah aan u dul qaadan karin golo degaan ahaan xukuumadda waxaan u diraynaa baaq war arrinkaasi arrin idinka suurtagelaya maaha hadda xukuumadda si arrin idinka suurtagelaya maaha oo dadku idinka qaadanaya wax dadku idinka qaata keen xaaladan haamaha la wareejinayo leeyahay shirkad baa la siinayaa ee Berbera maanta ka taagan horta xaalad inagu guba maaha waxa weeyaan waxay daba socotaa xaaladii tijaabada ahaa ee hadday tahay warshada kalluumaysiga dekadii yarayd hadday tahay warshadii leydhka hadday tahay dhulkii danta guud ahaa waa waxyaabo iska soconayo uno aad moodo oo Berberna waxay noqotay gal dadliqa walba lagu dayayo wax walba tas baa lagaga qaadaya waxaan sida xildhibaanadii gobolka guud laga soo doortay ee golaha wakiilada ku jiray ay cadeeyeen 7 shirkadood tartamaya in wasiirkii ganacsigu cadeeyay iyadoo ay dalka dawladda ka jirto haddana ma qurux badnayn dawladnimada la isku boobo wax walba la isku tijaabiyo waxaan magaaladan marxalada ka duwan marxaladaha dalka ka jira ayaa ka jira waxa ka jira xaalado nolol qalafsan baa ka jira dad danyar baa ku nool waxaan haamaha dadka Berbera waxay raali kaga haayeen in dawladnimada lagu maamulo haddii dawladnimadii lagu maamuli kari waayay ay cid ganacsatada damac ka galay oo inay hantidii dadka lunsadaan waxaan in dadka magaaladan jooga xayawaan ma aha oo iska ma nooloona waxa loo baahan yahay in wax la iska weydiiyo oo golahooda deegaanku ka fadhiisto oo yaani maalgashi sharciga degmada ee xeertoonatiga ee qaranka dastuurka ka soo farcamay waxaan mar haddii hanti qaran oo degmadii ku taala cid la wareegayso maxay nooga meel yaalaan yaani heshiiska waa inuu ka mid noqonaa waa inuu golo ka mid noqdaa waa inuu golo ka doodaa waa in manfacaysa
marka horeba dan gaar ah laguma qabin haddii cid kaleba dal loo loodayo waa in degmadii lagu soo celiyo geesta kale gudoomiyaha gobolka saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo aan wax ka weydiinay wararka sheegaya in xukuumadda Somaliland ay shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay ku wareejinayso hamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera ayaa xusay in aanay arintaasi wali soo gaadhin ka maamul ahaan isla markaana haddii ay soo gaadho uu sideeda u filin doono waxaan idin sheegayaa saacada imika aan idin la hadlayo warbaahinta ka hadlayo ilaa hadda ma hayo wax official ah oo soo gaaray aniga isla barhaanta maray waxaan isir wareysana xalay meelaha koodi u yeelanay waxaan waa maxay isaga laftiisu wuxuu cadeeyay inaan wax qoraal oo rasmi ah oo ilaa hadda soo gaaray aan jirin dadka gudoomiye waxa sheegay wasaaradda ganacsiga sida xalay warbaahinta laga sheegay qaano ayaa u sheegay wasiirka ganacsiga inay arintaas jirto wareejinta ama kaydka shidaalka shirkadaha madaxa bannaan ee Barafka sidee u aragtaa adigu gudoomiye ahaan in haamaha shidaalka Berbera shirkad private lagu wareejiyo horta markii hore shirkad private gacanta ku jirtay maantana haddii ay iyadu madaxweynuhu garto shalay saa ka wareejiyay maantana hadday asbaabtii shalay looga wareejiyay oo muuqatay haddana in lagu celiyo madaxweynuhu isaga awoodeeda leh xaqna u leh waana yeeli karaa maxamed cabdullaahi soo fadhiistay Somali Cable TV magaalada Berbera